السلام عليكم محا علي سعيدو. وعليكم السلام كابتن هيجل. صاحب waxaa iga warantaa waxa la yiri ninkle maxaa علي سعيد dumarka aad buu jecel marka dumarka adigu kuwa buurbuuran horta dheer dheer ma jecesha iyahow dumarka in la jeclaado waa shay meesha ku jiro nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaana jeclaa nabiga saddex wuxuu jeclaa alayhi salaatu wasalaam dumarka iyo carafo iyo salaada ma garat marka in dumarka la jeclaado waa sax marka aan kula goosto dumarka nooca aad jeceshahay dhererkooda ma jira ma dhererka masaciilka dhererka iyo dhererka intee baad ugu jeceshahay inay dherer leeyahay waa dumarku inay aad u dheeraadaan ma jeceli inay zaid u gaagabnaadaan ma jeceli laakiin sanadii ugu dambeeyay dhanka gaabnidan ku haystaa waayahay inay buuran tahay iyo inay caato tahay kebaad ka heshaa wixii nool baa ku nooleeyay dhaan mahmaha Soomaaliyeed qof jir leh oo maasha Allah oo ilqabad leh oo de waxa weeyaan aad ku indha qabowsatid markay marwadaada noqoto ayaan jeclahay nooca hilibka lahan jeclahay inay seeka tahay ma jeceli inay tahay waxa weeyaan qof buuran oo balqolqan ma jeceli meel dhaxaad normal baad ka heshaa dumarka markaad cabirka aad doonaysid fiirisay kuwa dhexdhexaadka kuwa inamaha u badan mise kuwa garoobaha ah wallahi garoobada ugu fiicanba waayo garoobadu iyo inamadu markii la isku eego dadka jirka laho maasha Allah waxa weeyaan garoobada u badan yihiin waayo dad waayo anagu isdhisayo waayo gabadhoodte waxa weeyaan waa iska xaafadaha hooyada iska joogtaa badmooda laakiin macnaheeduna ma aha inaan gabdhaha dhaleelayo labadaba way wacan yihiin laakiin anigu haatan waxaa ku haystaa dadka garoobada waxaa marka kuugu darayaa intaa maadaama xagga garoobada ku haysatid dumarka sanad aad ka hesho ma jiraa inta dhexdhexaad averageska sanadka waxaan jeclahay inta u dhaxayso 20 ilaa 30 inta u dhaxayso 10 sano gudahoodu adigu waa in qof ku jira dhaxdooda gabdho ku jiraan jeclahay 20 ilaa 30 inta u dhaxayso waa gartay gabadha aad jeceshahay haddii aad inaad guursatid ba ma inaad guursataa jeceshahay mise inaad iskala sheekaysato sheekada macnaheedu waa guur sheeko tiro badan iyo hasaabo tiro badan oo anama tiro muhiimada caafimaad waqti kooban hadal yar iyo howl badan waxaan kuugu darayaa inaad naagta qarsatid iyo inaad doontid kee waa jeceshahay maxaa Soomaalida tiraahdaa xalaal